shirkan looga hadlayay wadatashiga ka faa'iideystayaasha mashruuca taakulaynta isgaarsiinta dalka ayaa maanta si rasmi ah ugu furmay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baaya. Waxaa furitaanka shirka ka soo qayb galay madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed iyo wasiiro ka kala socda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka. wasiirka wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Nuur Sheekh Cadde ayaa ugu horeen ka warbixiyay ahamiyadda shirkan iyo waxyaabaha looga hadlayo. Bariidkii ama buuqdadii lagu gudbin lahaa wax walba oo jiro. Sidaa daraadeed waxaan u soo dhaweynaa wasiir ahaan Koonfur Galbeed Soomaaliya mudanayaal iyo marweyne soo dhawaada mar labaad soo dhawaada mar saddexaad soo dhawaada waxaan ka cudur daaranaynaa xoog dib u dhac iyo nagalay farsamo awood maalmo ciid iyo shaqaalihi xoogaa fasax ayaa lagu jiray saasaan ka cudur daaranaynaa waxaan rajaynaynaa kulankan oo lagu kulmay oo ah taakulaynta isgaarsiinta. Cabdi Xasan Canshuur wasiirka wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada dowladda federaalka Soomaaliya oo kulanka maanta furitaanka ayaa ka hadlay waxyaabihii soo qabsoomay kulamadii hore iyo waxa ay ka rajaynayaan kulankana. Badan kulamada marka ay soo nimaadno waxaan dib u jaleecnaa maxaa la soo qabtay kulankii ugu dambeeyay wixii lagu heshiiyay mahir galeen maxaa hadda caqabada ka soo baxay iyo in la isla qorsheeyo mustaqbalka wixii aan wada qaban lahayn marka kulankan ay madaxweynuhu daba jooga kulamadii hore ayuu daba jooga kulankii ugu dambeeyay waxyaalaha ugu muhiimsan oo soo meel dhigno waxa ka mid ah oo loo baahnaa in wax laga qabto loona xil saaray dowladda wasaaradda boostada isgaarsiinta heer federaal maadaama iyada ay tahay hooyadii wasaaradaha in la joogteeyo kulamada noocan oo kala waxna laga qabto wixii lagu heshiiyay oo kulanka ugu dambeeyay la isla meel dhigay. madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo furay shirka ayaa ka hadlay faa'iidada ummadda Soomaaliyeed u leedahay shirkan looga hadlayo horumarinta isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada dalka. guddi isgaarsiin baa la suubiyay isgaarsiinta maanta meesha ay maraysa iyo horsocodka iyo sida ay ola jaan qaaday wada shaqaynta ay dowladda la leedahay iyo fursadaha jirana waxaa weeye muuqdo anigana waa dhiirigelinaynaa waana soo dhaweynaynaa dowlad goboleedka Koonfur Galbeed haddaan nahayna wax allaaleen wixii horumar ah oo ummadda Soomaaliyeed loo samaynayo oo muhiim u ah ummadda Soomaaliyeed oo horumar iyo waxtarba ah waa soo dhaweynaynaa waana kala shaqaynaynaa hadduu ilaahay yidhaaho wasiirada dowladda federaalka si gooni ah usoo dhaweynaynaa shaqooyinkooda iyo shirarka ay qarannimada Soomaaliya looga shaqeynayo annaga waxaan ka midnahay dowladda federaalka Soomaaliya federaal ay qaadatay dowlad goboleedyada jiro dowlad goboleedyada hooyadeeda waxaa waaye dowladda federaalka waxa ay shaqada ka soo bilaabanayso hoos weeye waxay aadaysana waa kor ilaa iyo deegaan goladeegaan degmo maamul gobol wasiiro federaala ilaa iyo laga aadan maxay ahayd dowladda federaalka ee soconaysaa. shirkan ayaa daba socda qorshe lagu mideynayo horumarinta isgaarsiinta dowladda Soomaaliya Kenya Ethiopia Eritrea iyo Djibouti waxaana shirkan maanta ka furmay magaalada Baydhabo socon doona muddo 2 maalin ah ayaa maalinta bari la rajaynayaa in la soo gabagabeeyo lagana soo saaro war murtiyeed. Shukri Ismaaciil Axmed RTN magaalada Baydhabo.